ballan furka ku caanbaxa bini aadamnimadooda aad bay u liidataa hoos bay u dhacdaa meel aad u liidatay tagtaa ballamadu bay culimadu yidhaahdaan laba u qaybsamaan ballan ilaahay lala galo iyo ballamada bini aadamka lala galo ballamada ilaahay lala galay waa diinta oo dhan laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markaad qiratay waxaad qirtay inaad ilaahay aqbalaysay nebi maxamedna aad raacaysid ballankaasaad ilaahay la gashay dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyahy wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum war ballankayga fuliya kiinaan fulinayaay وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ور إلهي بلن كيسا أوفيا ذلكم وصاكم به كاسبا إلهي إذن أمر يا إذن فريا لعلكم تذكرون إلهي وحلي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واحد هذا علماء انت بدن بلن كإلهي إلا لقاله قفك الله بضع فيه كل عومبا إلا وسيا انت بدن ضعف الذاكرة بيد هذا ولذلك بقى آيات الله يقول لعلكم تذكرون يبيد هذا ضعف العزيمة وينواتي النبي آدم الله يقول فلم نجد له عزمة واحد هذا ولا بدأ مشكلة ده انت بدن بلن فرقك يعني إذن وحنا يقول لنا هل أوفيو بلن كي هشيسك بلن كو وحنا قنكر بلن لبقى فردحية وحنا قنكر هشيس لبقى فردحية noqon karaa heshiis bulsho u dhaxeeya wuxuu noqon karaa heshiis dawladda oo dhan iyo dadkeeda u dhaxeeya wuxuu noqon karaa heshiis dawladda iyo dawlad kale u dhaxeeya wax kasta oo heshiis oo la galo ama mid siyaasi ha noqdo ama mid dhaqaale ha noqdo baaxmushtar contract la gala ha noqdo mid shaqo ha noqdo qof shaqaale iyo ninkii shaqada siinaya ha ahaado mid qabiil ha ahaado iyo heshiis ay wada galaan wax oo dhan heshiis baa la wada yiraahdaa وحرم وعهود وحرم ومواثيق ضدكنا انت بلنك سيدي سأفل سواء ير إلهي بابا قرآن كله وما وجدنا لأكثرهم من عهد ضدك انتي سبضا انتو هذا بضان بلن لقى مهلين باللي سيدي وحق لين وما يفولين إذا بلنكو صومالي ده حتى عندك كده واحد انكاه بالقول بولي قول بولي وحويا وقف وحقو يداهدا يكون طنطو وحي هشيسة وقلان كبحين وقف لوغي ما ضد عدن ما ضاع هشيسك وصحيح دا ينسيدي سوا أقبله قرآن كان إلهي وحكوت المامية عدة هشيسية دا كبح دا ينتي عد بني آدم لماذا كبح ضبا كورن قف بني آدم كأنتو كبحي حق حيوان لماذا هو بحي إلهي قرآن كوحكو لي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وحدولك كورس على الدواب توحوا شر بدن با إلهي كوة إلهي كقالوا بيان رمينين وبلنك إلهي بيبريين وحكالوا الصفة الله قد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وقوة بلنك لقى شيء مركز تبا بلنك برينيا دادك بلن فرق قعان بحا بنا آدم نمدو دا آد بيقول لي داتا هوس بيقول دعضا ميل آد قول لي داتا يتكتا ساو قيد باين بلنك اللي أوفيا وردقا نلاشا كفي عن دين تناي حوق تلماميسو صحابة دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام waxay ku caan baxeen ballanka inay oofiyaan waana taasi sabab ka mid ah sababaha dadku ay si fudud ugu raaceen nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiiska bukhaari iyo muslim ba warinayaan ibn cabbaas uu warinayo abu sufyaan markuu hiraqal u tegey gaalkii u talinayay dowladdii bizantiyiinta romaniski ayaa abu sufyaan ibn alxarbi oo gaalaba la kulmay dabeetana nigo su'aalaa dhex maray si uu u hubiyo waraaq buu nebigu u diray waraaqdaasi ciddan ay ka timi bal inuu nebi yahay iyo inaanu ahayn buu rabaa inuu hubiyo
wuxuu ka hubinayaa inuu ninkan taariikhdiisa iyo noloshiisa baadho waayo qofka beenaalaha ah iyo qofka nebiga isku dee dhaqan maaha nebigu waa dee qofka bini aadam u run sheeg badan ilaahay ku doortay ka beenta sheegaya kaan nebiga ahayna nebi sheegtayna dee waa dadba ninka u been badan dabeetana su-aaluu weydiiyey dhowr iyo tobanka su-aalood ee uu weydiiyey waxaa ka mid ahaa muxuu idin faraa wuxuu yidhi wuxuuna faraa salaada iyo sadaqada sidqiga runta iyo cafaafka dhowrsanida iyo alwafaa'u bilcahd wa adaa'i lamaana ballanka in la oofiyo ammaanadana in la guto hiraqal wuxuu ku yidhi markaa haadihi sifatu nebiyin kanaad sheegaysaa waa sifo nebi buu yidhi waxyaabuhu weydiiyey hiraqal abu sufyaan ibnu alxarb oo markaa gaala wuxuu weydiiyey hal yaqdir ma khiyaameeyaa wax ballanka intuu galo ballanka ma ka baxaa markaasuu yidhi laa kama baxo wakadalika alambiyaa'u waalrusulu laa yaqdiruun buu yidhi haddaba waa sidaa nebiyada iyo rusushu ballanfurka ma yaqaaniin yacni waa sifada lagu garto ambiyada calaamaadkooda koowaad waxaa ka mid ah inay yihiin dad ballanka fuliya ilaahayna qur-aankiisa abulambiyaa ibraahim markuu ammaanayey waxaa lagu ammaanay waa ibraahim aladii wafaa ibraahim kii oofiyey wuxuu ilaahay ballan la galay faatamahunna ibraahim kii dhammaystiray baa la yidhi ilaahay markuu ammaanayay qur-aanka dadka loo yaqaano muttaqiinta ee saadiqiinta ah min sifaati almuttaqiina asaadiqiin waxaa ka mida buu ilaahay yidhi waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون با إلهي كتلمام وكوا بلن كأوفية هذي بلن قلان هشيس قلان وكوا أوفية أهل الجنة فردوس كسر النحلية صفات كودا مرك إلهي هو الرمي وحكم دها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وكوا أمانة دودا iyo wixii ay ballan qaadaan ilaalinaya baa la yidhi ulaa'ika aayaadka markay soo socdaan ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdows hum fiiha khaaliduun fii suurati almacaarijna sidoo kale ilaahay ku tilmaamaya ulaa'ika fii jannaatin mukramuun ulaa'ika fii jannaatin mukramuun idan waxaan leenahay ahlu jannaha meesha sare gala ambiyada awliyada saalixiinta sifada ay ku tilmaaman yihiin waxa weeyaan inay yihiin dad ballamadooda oofiya ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala inaynu dad muslima uu inaga yeelo oo ballanka sidiisa u fuliya heshiiska sidiisa u fuliya heshiis kasta uu galay gal iyo muslim ciddaa doonta la gale inaad heshiiska sidiisa loo fuliyo sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin